munaasabada dabaaldega xuska sanad guuradii soddonaad ee ka soo wareegtay maalintii Soomaaliland qarannimadeeda dib ula soo laabatay ayaa maanta ka qabsantay Hotel Rays ee magaalada Boorama. munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday xukuumadda dhexe, maamulka gobolka iyo kan degmada, xildhibaano, salaadiin iyo xubno ka socday saddexda xisbi qaran iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. mas'uuliyiintii madashan yimi ayaa dhammaantood hambalyo u diray shacabka Soomaaliland kana sheekeeyay xaaladii kala duwan ee dalku soo maray. gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo madasha daafray ayaa sheegay waxaynu gudanaynaa waajibka ay nagu leedahay maalintan. runtii waa maalin inaanu ixtiraamnay naga mudan 30 sanadood sidaynu u koray dad iyo dunyada iyo sanad 30 sanadood ka hor sidaynu ahayn. qof kasta oo waqtigaa joogay wuu dareemayaa farqiga u dhaxeeya. waa lagu dhawaaqo markaa laga dhawaaqay laakiin cid la yabyabtay ee isu keentay ee kabkabtay ee halkan ku shirisay ee kolba nabadeeda u gurmanaysay laguma haysto Awdal bay ahayd. intaasi kadib waxa hadalka iska daba qaatay qaar kamid ah salaadiinta gobolka Awdal, gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Awdal Cabdiqaadir Daahir Ojar, gudoomiyaha xisbiga Ucud Cabdirashiid Ibraahin, haldoorka iyo haweenka gobolka Awdal iyagoo ka hadlay muhiimadda ay maalintan u leedahay shacabka Soomaaliland. waxaan halkan hambalyo iyo ducaba uga dirayaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan ciidamada aaga galbeed ee anigu aan taliyaha u ahay. waxaan leeyahay 18 May 18 dambe ee May Allah idinku gaarsiiyo nabad qab iyo caafimaad. maanta dalbaadegani waa kii ay gaarka u lahayd ay ummadda adduunka u dhaqan ka lahayd Soomaaliland. waa kay ku xasuusanaysay la soo noqoshadeedii 18 May maalintii Burco 1991 taasaa saaka isku keentay 18 May oo soo dondirsatay. waxaan leenahay soo dhawow kuna soo dhawaada dadweynaha gobolka Awdal iyo Salal intaba way ka dhaxaysaa ilaa inta hadana dhinacay naga xigto oo dhani qaranka Soomaaliland. waxaan leeyahay yaa la dhaxamanin haddaan ree Awdal lahay annaga 100% Soomaaliland naga uga lex jecel badan ayaa la dhaxamanin baa leh. maanta waxa weeyaan waxaan hambaliyaynayaa dhammaan shucuubta Soomaaliland. waxaan ku hambaliyaynayaa 18 May ayaan ku hambaliyaynayaa. waxaan leeyahay Soomaaliland waa muqaddis, way jirtay oo way tigsatay tallaabsatay. ilaahayna waxaan uga baryayaa inta ay ka badan inay sii tallaabsato ay sii jirto cimri dheer iyo caafimaad. ugu dambeyn waxa madasha ka hadlay maayirka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadi iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Cumar Cabdullaahi Bade. xafladan maanta aynu xusayno oo 30 jir ah Soomaaliland siday ku bilaabantay iyo maanta halka aynu taagannahay marka la isbarbar dhigo waa waxaynu ku faani karno. gobolka Awdal aniga ciidimo sheegto waan u joogay maalintu bilaabmay halku taagnaa iyo maanta halku taagan yahay. gobolka Awdal wuxuu ku suntan yahay horumar, dadku ay yihiin dad jecel nabadda iyo isku tashiga iyo wada qabsiga. wuxuu ku suntan yahay aqoonta. waxaan ka marakacaya qof walaal halkaa fadhiya oo salaadiinta da'da iyo cidii kale ee waxgaradka ee bariga joogtay way garanaysaa noloshu say ahayd iyo maanta say tahay. nin walba ilmihiisiba u taabagalay. Isteexada Awdiyar weyne Kalson TV Boorama.